Wanaagsan daawadayaal, maanta waxaan idin hayaa barnaamij aad u xiiso badan. Barnaamijka waxaynu ku soo qaadan doonaa abwaanadii jacaylka ka gebiyey ama jacaylku ku dhacay ee noolaa qarnigii 20aad kii 19aad. Cabdi Dhuux Cabdi ayaa abwaanada iyo qisooyinkoodii jacaylka hay nooga warrami doona. Cabdi waa dadka waqti xaadir ka nool ee suugaan xifdiga leh ama suugaantii abwaanadii hore xifdisan. Cabdi wuxuu iga warramay ma dhowtoole sheeko abwaan Soomaaliyeed oo gabadh Hindiyada ku nool gobolka Kashmir jeclaaday. Waa laga yaabaa dad badan isweydiiyaan abwaankaas Soomaaliyeed iyo gabadha Hindiyada qaab caynkii isku jeclaan karaan. Maxaa dhex maray? Su'aalo badan baa laga yaabaa maskaxdaada inay ku soo dhacdo. Cabdi Dhuux Cabdi ayaa qisada inooga warrami doona ee daawadayaal ku soo muxsin cabdilaahi yuusufow sida aad u sheegtay qisada maadayska iyo isugu jirtay murtida ee aad markii dhowtay wax iga su'aalaysay haddii aan gudagalo waxay ahayd qiso beri dhexdii ahayd dhacday ilaa 1990kii meelaha markay taariikhdu ahayd ka dhacday dhulkan hawdka hargeysa ka xigay miyiga ee xoolaha lagu dhaqdo dhalinyaro joogta nin ka mid a ayaa qisadaa keenay marka sida runtii marka qisa noocan oo kale la yidhaahdo nin reer miyiga oo geel hawd ku haysta oo weligii magaalo tegin ayaa jeclaaday inan ku nool gobolka Kashmir ee waddanka Hindiya oo muslimada waxay noqonaysaa sheeko dee qof kasta uu soranayo qof kasta oo loo sheegaa niyo sidee u dhacay karaysaa suuragal ay u tahay marka rag reer magaalahoo berbere iyo hargeysa iyo dhulkan Soomaalidu magaalooyinkeeda waaweyn joogi jiray xilligaas oo kale ayaa xitaa yaabo wareer ninkan sheekadiisu nimankan reer magaalka hay naga dul boodi iyo jacaylkan wareerka miyi ilaa Delhi ama Hindiya nooha marka sheekadu saasay ahayd marka nin Cali Maxamuud Liibaan leeyahay Cali Salandoole ayuu ahaa ninku oo dhalinyaro ahaa xilliga imka nin weyn oo dhulka jooga laakiin siga qudhiisa barnaamij baa bari oo qisada ku saabsan baa mar idaacadaha qaar ka qabteen aan fili doonana haddii barnaamijkan aynu duubno in dib loo wareysan doono waa qiso murtideeda iyo maadeeda wadata marka wuxuu waxaan jeclaaday gabadh gobolka Kashmir dadka Soomaalida imka warbaahinta inta badatay iyo dadka cilmiga way yaqaanaan waa gobolkan ay Pakistan iyo isku haystaan Hindiya dadka ku nool waxa la sheegay inay muslim yihiin marka wuxuu gabadh Hindiyada oo ku nool gobolka Kashmir ee waddanka Hindiya oo muslimada oo la yiraahdo buu magaceeda Qamar Nuur Carab ayaan caashaqay waxay noqotay qisadii dhalinyaradii xilliga ninka la joogtay ay aad ula yaabeen oo yiraahdeen warniyow nin reer hawdana waad qisadan jacaylkaagana waxa tidhi Hindiyu joogay waxa isu qabay marka waxa la ninkana waa nin gabyaayo sida runtii ah isagu abwaana oo hal abuur dhaba ah laakiin hadiyo jeer gabyaaguna wuxuu ku soo bandhigaa waxyaabaha ku yimaada noloshiisa hadiyo jeer ama geyga uu joogo waxyaabaha tooyga iyo xilliga marka kulba waxa jooga wuxuu jecel yahay isagu inuu suugaan ku soo bandhigo marka wuxuu yiri warniyo si ay iga rumaysataan qisadan inay jirto tix gabaya ayaan idinku soo bandhigayaa bal inta uu qaran leeyahay jacaylka yahay iyo xaaladdu halkay marayso marka gabaygii buu bilaabay isagoo marka aad ugu marka gabayga aad dhageysato aad soonaysa ninkan jacaylku waa ka dhab inantana uu jecel yahay aanad soonay marnaba ninkan uu kaftamaya marka haddaan gabaygii inoo guda galay wuxuu yiri nimayow qadare ee bahay waa qabtoo kale qiso aanan filanaynin baa ii qiyaastimi nimayow qadare ee bahay waa qabtoo kale qiso aanan filanaynin baa ii qiyaastimi qof waxaan ku suureeyay oo ilaa qowlkiisa oo aan in laga qaadahayn ina qalfaadaya oo aan in laga qaadahayn ina qalfaadaya oo qooman faran weyn la mida qarashka uu leeyahay oo aan gar qaadane ileen qalad hadduu geysto oo aan in badan qarinayo haatan igu qiiqay qayriyay naftaydii haddaan qalam ka eegayo qubuuraha intaan geli lahaa maan iskaba qaatin halku leyle iyo qays ku dilay igu qaroomeeye cilmikii qudhii ugu yimaa ii qabiiltamay ninka qodobka caashaqu furmaa way la qirayaaye qamuunyada jirkaygu ka garan qoon inay tahay waa qaybo dhowrehe cishqiga qoodhkii bay helay aniga baarqabkii jacaylka ay helay waa qaybo dhowre cishqiga qoodhkii bay helay qow iyo wuxuu igala dhacay qoor badweyn tahay qaadaadhigiisaan arkaa qoon fogii geliye ninkay qarankan Soomaal u tahay waa qolqol u jooge Afrikaan hadduu ii qabtana waan qadarin laaye qaylada waxaa iigu wacan qolada reeroode Qurayshtii Hindiya buu waqtigan qaba ileeyay Qurayshtii Hindiya buu cishqigu qaba ileeyay qulubtaydu gabadhan arkay u qarqaraysaa qalinka ah wuxuu qulubtaydu gabadhan arkay u qandhanaysaa qulubtaydu gabadhan arkay u qandhanaysaa midabkan la quudhaynin meel laga qiimi
sunnayaasha qalinka ah timaa garabka qaadaya cadka qoorta lagu joojiyey qonofka weydaartay markaan labada qaar eego waa sii qarqadhayaaye qorshaheeda ruux daawadaa kama qaraareene iyadoo qormadan joogta baan qamar ku rayn laayay qowlbaxay lamoodiyey cuntadu way qadhaadhahaye qaxurdana ma siin waayadaa qaab kastoy tahaye qalbigaan la shirayaa intay wada qoslaayaane waxaan qaadirowda u hayaa guur qumaatiye iyadu badda soo dulqaadaayo anigu quusaaba qoortiyo kol waanu isa sudan qalabka hensayb markuu halkaa maraya qaybta dambe gabayga wuxuu ku sheegayaa haddii isaga calafo isu qori waayeen intana is calfan waayeen oo ilaahay kala qaado oo uu horteed dhinto intaanay is helin in uu wuxuu sheegay ninkii ay guursan lahayd ee gayaanka ka guursan lahayd iyo kii ay diidi lahayd marka wuxuu yidhi haddii mawdka waa lay qoray uu qoolka igu jiida buu qarnigan la kacay ha u dhowaan waa qarribayaale odayaasha waa lagu qadaa sheeka ha u qabanin nacas waanu kuba qaarajine qoonse weligaaba qastigii waxaan kaaga helay qaariyaa dhexe eh haddii kale qabriga iigu imo taladii waa quusiba markuu gabaygaa ka tuuray ee raggii aan fariiray oo ninkan gabayga culusaa iyo mala arrintu waabay jirtaayo de ninba uu si is yidhi yacni gabayga miisaankiisa rag badan is yidhi arrintu waa dhacda jirta ee ninba uu si is yidhi yacni gabayga miisaankiisa rag badan is yidhi arrintu waa dhacda jirta ee ninka wax lala qabto ayuu nin dhallinyaradii ka mid ahaa xilligaa gabaygaa ninkaasi uu marinayayoo isagu reer magaal ahaan jiray oo dhulkan berbere iyo hargeysa iyo burcayo dhulkan joogi jiray oo maraakiibta hindiya iyo kuwa adduunka oo dhan galaabaxayaan dekedaa berbere iyo diyaaradu oo isagu ajahana badan arkayba ayaa yidhi war annagoo weligay reer magaal ahaynoo ajahana badan aragnaan hindiyada arage hagguu ninkan hare gardur joogaa ku arkay buuri hindiyadda waxaanuu iska hadlayaa ninkan wax kalaa isu sawirayoo jin iyo malaa waxbaa isaga dhigay buuri hindiyad markaa gabay ninkaasoon gabyaa weyna markaa hore cidi ku ogeyn laakiin arrintan uu markaa fasilay isagu ayuu baa waari kaadiya aniga arrinka fasilayo si kale weeyaan saaxiibkeen waxaan u arkay baan anigu si kale magaras markaa isagu qiyaas kale ku dhuftay wuxuu warniyo arrintu dadna wuxuu gabay yaro kooban oo uu leeyahay ninkan hindiyad muu arage waa xisaab kale ayuu tiriyay markaa wuxuu yidhi ninba dhan uu qaataba ninkaa waxa loodhan jiray cabdi maxamed jaamac cabdi dhegoweyne allaha u naxariista u dhintay wuxuu yidhi ninba dhan uu qaataba anaa qiilkan soo helay waa quruumi mulax bayle iyo qoynkii kamarhoyne indhahaa qureesh kaaga dhigay qararidii hawde qirahayga koocaad habeen quus ku kulanteene ilaahay wax kula quusa iyo qabarba kaa haye guur quma anaa kula raboon kaala qayb gale in adeer allaa qaadire taa iskaga quusin markaa qiso caynkaas ahoo waxay